ducadaasi wanaagsan aad maaragtay inoogu soo bandhigtay barnaamijka anagoo joogna gabagabadiisii ayaan waxaan u jeclahay maxamed sidaad la socotay raaga cumar uu ka hadlay arrintan isdilka iyo dhalinyarada Soomaaliyeed oo wadankoodii ama waalidoontoodii laftigoodii kala soo cararay carruurtooda si ay u badbaadsadaan Soomaaliya dagaalka ka socday iyo dhibaatadii ka socotay oo maanta markii ay wadamadan la keenayna ay carruurtii qaarkoodna kaga halaabeen qaarkoodna ay jeelal kaga jiraan qaarkoodna isku dilayaan maaragtay wadada ayadoo waliba ay qaar ka fiican ay jiraan oo jaamacadaha tago iyo waxbarashada balaakiin qaarkaasi xumaantaasi ku dhex jiro sidee looga saari karaa weeye horta nabiga ka qaban kartaa waalidiinta nabil mid baa muhiim oo adaguna ilaa khayr ku siiyay saxday taasoo ah horta inaanay dhalinyarada Soomaalida oo dhan aanay wada xumayn dhalinyaro badan oo wanaagsan baa ku jirta marka taa laftirkeeda inaynu bal hadda aynu acknowledge garayna waa mid meesha ku jirta waxaan dib ugu yaran noqon lahaa saddexdii arrimood walaalkeen taabtay magaciisa baa iga lumay ilaahay khayr siiye arrinkii ahaa haddaynu doonayna xaaladahan inaynu wax badan aanu ka qabanno in la eego guriga inaynu eegno iskuulada iyo inaynu eegno environment ama social environment wax la yiraahdo asxaabta meelaha ay carruurtu tagayaan wixii labada meelood ka baxsan iyo xiriirka ka dhaxeeya saddexda aad bay muhiim u tahay marka inuu waalidkii uu ay carruurtii ay yaraan ay kaga soo ay ku soo ababiyaan moogta afkoodii dhaqankoodii iyada wixii la mid ah iskuulkii inay ogaadaan halkay wax marinayaan haddii marka uu dib u dhac ku yimaado ay ka hortagaan markiiba ay macallimiinta la fadhiistaan ay marka ay xal u raadiyaan inta goortay prevention is better than cure marka waxa markaad ka hortagto ayaa dawo loo helaa iyo takalo oo malaata ugu khatarsanaya halkan iyo dhibaatooyinka halkay ka bilaabmayaan social environment wax la yiraahdo ama meelahan ay dhalinyaradu asxaabta ay raacayaan iyo meelaha kale ay ku socialize gareeyaan taasi waxay u baahan tahay marka carruurtii aan la oppress gareynayn ama pressure aan la saarayn in waalidkii iyo carruurta ay xiriir ay ka dhaxeeyaan waalidkii uu waqti oo marka some sort of connection uu ka dhaxeeyo oo marka bal waqti ay ku wada tashadaan oo lamihii guriga yimaado ay arrimaha iyo meeshu maanta tagay adoo 5 minute dhahan noqotay ay isla fadhiistaan ay ka wada hadlaan hal wuxuu maanta soo sameeyay intaas hadda maalin kasta 5 minute wax gaari aad samayso waxay dhaantaa adigoo maalin dhan wiigii la qaata ta kale doonay aan ku soo yara koobo arrinka stop and search ka hadlayna mid baa muhiim ah inaynu qorno waan ka hadli doonaa insha Allah usbuuca gadaan baan maaragtay sii wada doonaa insha Allah ma labun baan doonay inaan kala saaro waayo laba section baa jira midna waa section 60 waxa la yiraahdo midna waa section 44 marka labaduna waxa muhiim waxa u tahay section 60 wuxuu qaabilsan yahay operation plant wax la yiraahdo waa gang and knife crime section 44 ku waxa weeyaa waa counter terrorism act iyo marka waa powers la siiyay police-ka inay marka arrimaha iyo wixii la xiriira ay ku joojiyaan marka labada faraqa u dhaxeeya in la ogaado waa muhiim labaduna by law waa in la insha Allah adigana waad nala joogtaa iyo dhammaan dhalinyarada aan ku siiyo adoo soo koobayo taladii ugu dambeysay Zakariya adiguna sidoo kale bismillaahir rahmaanir rahiim horta waxaan u mahadcelinayaa Faiza shaqadan waa shaqa dadka Soomaaliyeed oo dhan ay runtii xaq ku taana waa kuugu mahadnaqaya haddaan ku soo koobo horta barnaamijka Raaga Omar iyo TV-ga Universal waxay gelin badan bay sameeyeen taasina runtii waxay keentay in runtii ay crime-kaas wax weyn ka qabsooba in la dhimo sidoo kale masaajidada Soomaalida oo aan runtii si gaar ah ugu mahadnaqay sida masaajidka Hayes Al-Huda Islington Mosque iyaguna runtii masaajidada kale gobolada Birmingham ay ku yaala iyagu laftooda waxay gelin badan bay baxsheen waxaan u mahadcelinayaa kala ururada community-da Soomaalida oo iyagana wax badan ka qabtay oo aan magacyadooda aan soo koobi karin dad fara badan individual Soomaaliya waxa jira runtii iyagana ku hawlan arrintan runtii carruurta wax ka qabashada kuwaana amaan baan u jeedinayaa aad baad u mahadsan tahay Zakariya Ibrahim adigana bismillaahir rahmaanir rahiim dambiyadu way jirayaan way soo jireen wayna jiri doonaan waxa loo baahan yahay sida lagaga hortagayo waalidku marka uu horeeyay ubadkaagu dambi galo malag maaha waa inaad la soo xidhiidho cid ku caawin karta waa inaad lawyer saxa racism baynu dareynaa lawyerkaasi waa racist uu dadku necab yahay Soomaalida lagu diray bal lawyer halidii la raadiyay inaad u timaadaan xabsiyada markay ku jiraan in lagu booqdo oo wax loo tago adeerkii iyo abtigii intii la midka ay samayso inaan la sii fogeyn markuu ka soo baxana loo helo in wax bulshadii dib ula qabsado oo qofkii lagu soo dhaweeyay bulshadii iyo family-gii cid la midka u ahaa ilaahay xaq ahayna waafajiyo laakiin aynu raadino cid waxyaalahan fahmaysa wax nagala qabata so solicitors badan oo Soomaaliya jira inaynu la xiriirnaa muhiima
organisation badan oo u heegan habeenii maalin inay ka shaqeeyaan baa jira meel walba ku yaala iyagana in la xiriirno Somali communities ka caawa halkan dhaliisha looga soo jeedinayay waxaanu leenahay idinkuna hurdada ka kaca intii ummadda aad caawin kartaan caawiya oo camilu saalihaat ka mid noqda sida masaajidada marka waxaanu dhan lahaa looyaro fiican ha sameeyaan oo ha u tagaan annaga oo kale maada London Somali Youth Forum waxay idin furaysaa albaab furan oo aan xudmay oo inay idin ka caawiso ilaa wasiirka arrimaha gudaha iyo prime ministerka iyo dalkan solicitoradooda ku idin dababa in ay caawimadaasi idin samaysanto ay idin timaado intaas oo solicitor oo dhakhtar baa ku jirta hawsha wax idin kala qaban kara insha Allah ta'ala waynu ka baxaynaa dhibaatada kuma jireen taana ogaada waalidiinta dadtiin aad baad u mahadsantihiin sida aad maaragtay aad اسبوع والبا برنامج كوغا سو قيب غشان idinko isku dayay inaad dhalinyarada Soomaaliyeed maaragtay wanaageeda ama aad u noqotaan dad maaragtay role model aad baan idinkaga mahad celinayaa barnaamijkan codka Soomaaliyeed hadii goor sida aad maaragtay oo soo qayb gashaan adigu role modelka ka mid ah aad baad u mahadsantahay Maxamed waqtiga ugu yar dhamaan waxaan u mahad celinaynaa daawadayaasheena dadkeena la soo xiriiray iyo dhalinyarada maaragtay hadii jeer ka qayb qaata barnaamijka iyo sidoo kale farsamayaqaanada Jibriil iyo Maxamed iyo anigoo Nabil Xasan Waraba waxaan dhamaanteen baad kaga tageynaa sidaas iyo nabadgelyo wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh qalinkiyo buga baahida loo gabaxaye bulshayahay aqoon